kulankan oo ay magaalada Muqdisho ku yeesheen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya wasiiro hore ugu tirsanaan jiray dawladihii Soomaaliya soo maray iyo sidoo kale mas'uuliyiin kala duwan ayaa ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho kulanka oo ayaa looga hadlayay sidii looga hortagi lahaa in dagaalo kale ay ka dhacaan gobolada Mudug iyo Galgaduud halkaas oo muddooyinkii u dambeeyay beelaha halkaas wada dagay ay ku dagaalamayeen dhiig fara badan oo ku daadanayay kulanka oo ay soo qaban qaabisay dhalinyarada ka soo jeeda gobolka Mudug ayaa waxa intooda badan khudbadii halkaas laga jeediyay waxa lagu sheegay in ay muhiim tahay in dhalinyarada odayaasha xildhibaanada wasiirada dhamaantood bay u istaagaan sidii looga hortagi lahaa dagaalo ka dhaca gobolka Galgaduud iyo gobolka Mudug halkaas oo beelo wada daga muddooyinkii u dambeeyay dagaalo ku dhaxmarayay qaar ka mid ah dhalinyaradii kulanka ka qayb galeysay oo halkaas ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in ay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan dhaxdhaxaadin walba oo loo sameeyo beelaha wada daga gobolada Galgaduud iyo Mudug isla markaana looga hortagayo in dagaalo ay ka dhacaan waxaana dhalinyaradu ay sheegaan in qaarkood ay qorsheyn doonaan in ay tagaan goboladaas isla markaana ay soo dhaweyn ka dhex sameeyaan beelaha halkaas ku dagaalamay waxaan go'aansanay annagu inaan ku adkaysano mowqifkeena fakar kasta oo hor yimaada iyo shakhsi kasta oo mataqaana arrinka asaga ku jira nagala hadla inaan arrinkeena uusan u burburin sidaa daraaddeed walaalayaal waa xaqiiqa inta hadda meeshaan fadhiisa inaysan isku fikrad ahayn waa dhici kartaa in ay mataqaana fikrado badan kala duwan way dhici kartaa ninba inuu barnaamij siyaasadeed gaar ah uu leeyahay way dhici kartaa laakiin anagu dhalinyaradeena xaqiiqa fikradda waa ka midaysanahay siyaasadda waa ka midaysanahay iskuma ammaanayn macnaha waxaan ka wadnaa dhulkii haddaan tagnay oo gobolladii aan kala degenayn tagnay oo aan soo shirnay oo aan ku guulaysanay oo aan ciyaaro saaxiibtinimo ku qabanay gaalkacyo inta laga soo yimid cayaado lagu qabtay oo la isdhex maray oo halkaa nimid oo fikradaheennii annagoon cidna aanan kaashanin isku nimid oon tashanay oo dhalinyaradu ay fikradahooda isdhaafsadeen oo qof walba uu fahmay in arrinkan uu muhiim yahay taliyihii hore ee ciidamada booliiska Soomaaliya Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in isagu diyaar u yahay